ciidamadan oo laga soo xulay degmooyinka gobolka Banaadir ayaa muddo 4 bilood ah waxa ay qaateen tababar ay ku baranayeen sharciyada booliiska la dhaqanka bulshada kuwa la geyn doono degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Banaadir si loo dardargeliyo qorshaha sugidda amniga caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa tababarka u soo xiray ciidamadan oo gaaraya 1400 oo ciidamo booliis ah kuwaas oo kamid ah 3,000 oo askari oo loogu talagalay in lagu fuliyo qorshaha sugidda amniga caasimadda dalka. ciidamadan ayaa cududooda iyo heerka tababar ee ay qaateen waxa ay ku soo bandhigeen xarunta tababarka ciidanka booliiska General Kaahiye halka oo ay ka daawanayeen Ra'iisul Wasaare Khayre, Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyagoo aad ula dhacay muuqaalka dhalinyaradan u diyaarka ah in cadawga ay ka difaacaan shacabka Soomaaliyeed ay ugu horeeyaan sharwadayaasha nabadiidka Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhalinyaradan booliiska ee tababarka loo soo xiray kula dardaarmay inay si hufan u gutaan waajibkooda ka saaran sugidda amniga isla markaana ay xoojiyaan kalsoonida bulshada ay ku qabaan booliiska oo ah wehelka bulshada. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Janaal Bashiir Cabdi Maxamed oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka lagu soo xulay ciidamadan maanta tababarka loo soo xiray. Bismillahir Rahim alxamdulillah. ciidankan waa ciidan loo tababaray amniga magaalada inay ka qayb qaataan la baray shuruucda muddo 4 biloodna tababar qaadanayay. waxaan rajaynaynaa inay wax weyn ka bedeli doonaan amniga magaalada. waxaa loo kala qaybin doonaa 17 degmo ee magaalada. marka ciidankan waa ciidan sidaas ah. ciidankan waa ciidan cusub waa ciidan aan si fiican vetin loogu soo sameeyay la soo baaray inaan balwad lahayn inaan mukhadaraad isticmaalin inay nadiif yihiin inay dad ehludiin yihiin nidaam noocaas shuruudo noocaas lagu soo celiyo waa intii ka soo baxday marka waxaan rajaynayaa ciidankan inay ciidan u qalma inuu adeegaan ummadda Soomaaliyeed. halbeegyada tubta amniga iyo cadaaladda ayaa waxaa ka mid ah tayeynta iyo tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed si ay ugu guuleystaan ammaanka dalka si bulshada Soomaaliyeed u hesho nabadgelyo buuxda. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.